diyaaradaha tuuraya saaka waa warqada qabiilku wuxuu dumiyay qarankeena wuxuuna naga dhigay qaxooti ma ka tagnaa qabiil haabaa leeyahay walaalada Soomaaliyeed iyo kuwii soo qoray warqada waxaan ahaa koonfur iyo waqooyi waxay leeyihiin walaalama noqonaa bay leeyihiin haabaa leeyahay qarankeena ma dhisnaaba ay leeyihiin haabaa leeyahay hareerahan iska tagno saaka markaa imaado misleeyna diyaaradaha wadanka ku arkaysa diyaaradaha waxaan ku arki jiray ajnabiga diyaaradooda oo marbaraya laakiin diyaarad qaranka Soomaaliya iska leedahay oo saaka socoto oo calanka Soomaaliya ku yaal militariga xooga dalka iyo calanka Soomaaliya aad u farxay waxa maanta aad u faraxsanaa inta dowladda hadda aan soo dowladda Maxamed Siyaad Barre waa iska yaraa laakiin 10 jir meelahaas laakiin hadda inta dowladda aan soo arko dowladda ugu nasiib badan oo saaka diyaaradaha oo militariga oo saas u socday ciidamada militariga aad ay leeyahay tababarkooda diyaaradana saas aad u faraxsanaa amada geerideeda waajib waa diyaaradaha kumaati u kacay wala kabtarada waa ciidanka militariga ciidanka asbuubta ciidanka booliiska waa garta inta ciidamo oo wadanka diyaaradooda ahayn gaar ahaan aad amniga u sugaan farxadana aad u sugaan waalidkayga tarbulka iga sheekay jireen diyaarada inay tarbulka saa u wareegi jireen hadda ma sha Allah tarbulka noo soo guuri oo inta la keeno waa ma sha Allah aad u faraxsan dowladda aad u nasiib badan maya diyaarado Soomaali oo biiba saaka markii warqadaha soo dhaw aad baa ugu faraxnay waxa waay hada bulshada Soomaaliyeed aad iyo aad ugu faraxnay waayo ciidamada xooga dalka oo diyaarado qaas iyagu u leh ay leeyihiin oo maanta ay ku dabaaldegayaan xitaa iska daa Soomaali farxadeeda cadawyo fara badan oo gaararkeena oo darisideena aad bay nooga sharjayaan waana dawladdan way ku dhiirigelinayna ma sha Allah anagoo shacabka Soomaaliyeed horaha u socdaano kib gooyn baa leena diyaaradaha 22 Oktoobar ugu qori jireen hawada ayagoo maray hadda mar labaad aad ugu faraxsana muddo kadib in la helo diyaarado Soomaaliyeed qaranka Soomaaliya leeyihiin in maanta yimaado wax aad loogu farxo saaka aad u farxo wallahi marka arka warqadii daawayeen marka calaamadii aan fiiri marka liida Soomaaliya iska leh runtii waayo hore markaan soo cusbay aad ugu qeyrooday waan ku aad ugu farxo waan wax lagu farxo xilli hore waan arki jiray 22 Oktoobar oo kale diyaarado waxaa jiri jiray liiga Soomaaliya ay leedahay oo markaas soo maray meesha xafladaas iyo meesha ay ka jirto waxaa xasuustaa ayuu 5 iyo 6 raqam soo inay soo mari jireen 22 Oktoobar ay qori jireen ma garat waxa qori jireen taas isma lahayn ba saaka anigu ala TikTok wareegay baan arkay waxa uu mali ku been ba u maleynay كودي على كتر باركي ونع بدي نع كره ميلا كله وريجي واحد عالمي واحد سيدا وين حواله واحد بعدين عالمي الصومالية باركي